السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين الشريف إبراهيم عبد الله علي waxaan rabaa insha allahu fadliga iyo ahamiyada lixdan beri oo bisha shawaal laga soo mahayo oo islaamku ku leedahay baan rabaa inaan idin caddeeyo walaalayaal iyo su-aalo la iga weydiiyey inaan ka jawaabo lixdan berin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi isagoo aada qiimahay leeyihiin soonkooda maartay yacni noo dhiirigelinayo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana huma atbacahu sita min shawaalin fakaannamaa saama dahra kullah waa xadiis saxiix wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii bisha ramadaan soomo kadib 6 beri oo bishan shawaal soonfur ka midana raaciyo wuxuu la mid yahay qof sanadka dhan soomay halkaas waxa weeyaan marka waxa weeyaan hal bil iyo 6 beri waaye hal bil oo ramadaanka iyo 6 beri oo shawaalka ay waxay u dhigantaa buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadka oo dhan oo la soomay sababtoo waxa weeye soonka waa wuxuu u dhigmaa 8 beri man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha buru ilaahay qofkii hal wanaag la yimaado ilaahay 10 buu uga dhigaa marka halkii maalinba 10 beri ay u dhigantaa marka 8 bilood bay soonka u noqonaysaa halkaa bil 6dan berina waa 6 beri 3 beriba hal bil ay u dhigantaa min 10 marka saasay ku noqonaysaa marka 2 bilood 6dan beri 2 bilood soonkooda ay u dhigmaa waa sida nusuusta aan ka fahmayno nabigana calayhi salaatu wasalaam oo cadeeyay marka walaalayaal aan soomno insha allah waan la fududaysanin wadaca shaydaanku waa khatar mar hadduu soonka ka soo baxday wuxuu ku leeyahay wuxuu rabtaa markaan iska ciyaaro isku wax wal cibaadadii oo dhan maartay yani wuxuu isku dayaa bal inaa cibaado kale sameeyo iskaba dhaafe shaydaanka wuxuu isku dayaa cibaadadaada soonkii hore ahayd inuu kaa buriyo hataa oo munkaraad badan iyo baadil badan iyo mashaakilaad badan ku geliyo iyo xam badan iyo been badan midda kale culimmadu waxay yidhaahdeen oo kutubta ay dhigaan calaamaad ayaa jira qofka soonkiisa la aqbalay iyo sadaqadiisa iyo cibaadadiisa soonka la aqbalay waxaa calaamo u ah istimraariyatu alcamali saalix qofka inuu camalkii wanaagsanaa u daa'imo qofka hadduusuu u soomahay sadaqa u bixinahay haddana uu sidiile ku socdo oo sunnooyinkii soomo oo sadaqadii bixiyo oo dadaalkii uu wado taas waxay calaamo u tahay in soonkiisa la aqbalay laakiin qofka oo soonka un keliya dadaalay markii soonka dhammaadayna cibaadadii wixii dhan ka fadhistay oo maaragtay yani khafla iyo galay oo halmaamayba khayrkii oo dhan wixii dhan ka tagay taa waxay calaamo u tahay in soonkiisa hore la aqbalin hadduu ilaahay kii hore u aqbali lahaa kan ayaa laga garan lahaa oo wax walbeer kastoo la abuurto waa inay miro bixisaa oo baxda soo maa wixii soonkaad abuuratay hadda ayaad miraheed guusan lahayd nuurkii iyo anwaartii iyo hanuunkii iyo yaad hali lahayd laakiin in soonkaada la aqbalin bay daliil u tahay mar haddii aad cibaadadii dhan goysayba midda kale walaalayaal waxaa su-aala baryaha aada naloo weydiiyaa meel kastoon wax ka jeedino 6dan beri oo wadaca ma la xiriirinaa mise waa la kala qaybin karaa waa in la xiriiriyo ayaa fiican waxaa kala bannaan inaad usbuuciiba 2 beri ka soonto maalin ama maalin dhaaf u soonto adiga nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskiisa ku cad waxa weeyaan waa 6 min shawaal beri 6 min shawaal 6 oo bishan ka mid ah bisha inay ka mid ahaatan baa la rabaa in la xiriirto nabiga calayhi salaatu wasalaam maartay anaguma ma cadaynin waa guud ahaan 6 beri oo bishan ka mid ah baa laga rabaa su-aasha kale waxay tahay qofkii qalla lagu leeyahay sida haweenkii soonka dhexdiisa caadada ku dhacday oo soonka inay qallayaan la raba marka wadacii soonkiisa 6 beri soonkooda iyo qallihiisay kala yeelhayaan oo hal mar ma la wada niyeysan karaa wadacii soonkiisa iyo faradkii waajibkii hal mar ma la niyeysan karaa haa waa la jamcin karaa 6 beri wadac haddaa soonto oo markaa soomaysana kii waajibka qallihiisa guditaankiisa iyo wadaciisa haddaa wada niyeysato waa sax nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin maa nawaa wax marba haddaa khayrkaa niyeysatay labada way ku ansaxayaan
laakiin waxaa fadli badan in la kala qaado, inaad marka hore qallaha iska bixiso oo weliba aad horumariso, qallaha iska bixiso ilaa deen baa lagu leeyahay sunnaha kuu dambayse, ilaa wadaca waa sunno, waajibkii qallihii lagu lahaana waa waajib waay. marka hore inaad qallaha iska bixiso, kadibna aad soonto, wadacii aad soonto, taas ayaa fadli badan. ama wadaca aad soonto kadibna qallaha iska bixiso, sida fadliga badan waa sidaa. maxaa waa laba cibaado wey. intaa hal mar 6 beri jumlayn lahayd, waxa weeyaan kala qaad, mid walba ajarkiisa goonida saad u hesho, sidaas ayaa fadli badan. su-aashaasna waa jawaabteeda waa sidaa. waana isku dari kartaa, hal mar waa wada niyeysan kartaa, oo 6 berida wadaca 6 beri oo soon qala lagu lahaa waa iskaga saari kartaa, laakiin sida fadli badan waa kuu sheegay. marka wadaca waa sidaa. waxaa su-aala beryahan dhalinyarada qaar ay ku weydiinayaan, waxay leeyihin sheekhow waxaana la yidhi qof yar oo dhalinyaro ah haddii uu maarata oo wadac uu soomo hindhuu beelaa la yidhi iyo maarata yani, ama hadduu soomo mar hadduu bilaabo ma joojin kara iyo waxaasana la yiri ka waran. waxaas khuraafaad waayo. saxaaba rasuulillahi sala allahu alay wasalam ilmaha yaryaro oo dhalinyarada ayaa soomi jiray oo wadac soomi jiray, soomanka sunnada soomi jiray. marka nin yar nin weynba wadaca waa soomi karaa, waa sunno, wadaca waajib maaha. haddaad bilowdo inaad maarata 6 beri soonto aada fiican tahay, haddaa xamilo weysana waa iska joojin kartaa, oo wax ilaahay kuu kalifay maaha, sunno waayo. sunno iyo waajib waxaa la yidhaahdaa farad. sunno iyo farad waxaa la kala yidhahdaa farad shay haddaad samayso ajar weyn ka helayso oo maarata yani ilaahay xasanaad badan kugu siinayo wey. sunnona waxaa la yidhahdaa shay haddaad samayso ajar ka helayso, laakiin haddaad ka tagto aan lagu ciqaabayn. laakiin faradka ajara ka helaysa, haddaad ka tagtana waa lagu ciqaaba aakhara, ilaa waajib waayo. laakiin sunnada ajar aad ka heli, haddaad iska dhaaftana waxba ilaahay kuu qabsamayo, sunno waaye, ilaahay kuguma waajib yeelin. marka su-aalahaas oo dhan waa sida. markaan ku dadaalna wadac inaan soogno, allahna waafajiyo dadka qallaha lagu leeyahayna qallada iska horumariyeen, ha dadaaleen. maxaa yeele sanadka dambe saad u gaaraysa iyo cumriga meelo lagu soo joogo maogid, deen ilaahay baa lagu leeyahay, xaqa ilaahay iska gudo, xaqa ilaahay iska bixi intaadan dhimaanin. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.